Maxkamadda sare ee ku taalla magaalada Garissa ayaa 20 sano oo xadhiga ku xukuntay nin lagu magacaabo Shaafic kadib markii lagu helay dambiyo la xiriira kufsi iyo dilal loo geystay Safiya Xuseen oo ahayd gabar yar oo adeer u ahaa. Sida lagu sheegay xogta kiiska, dhacdadan ayaana dhacday 16 November 2025 waxayna ka dhacday xeryaha qaxootiga Xagar Dheere. Eedeysanaha ayaana lagu helay inuu gabadhaasi yar kufsaday kahor inta uusan dilin, arrintaasi oo care iyo muran xooggan dhalisay. Kiiskaasi ayaana muddooyinkii dambe si weyn isha looga hayay, iyadoo bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Waqooyi Bari Kenya ay ku tilmaameen fal argagax leh oo ka dhana bini'aadanimada iyo qiyamka bulshada. Dad badan oo ka falceliyay xukunkaasi ayaana sheegay in 20 sano ee xadhigaasi aysan u dhigmin culayska dembiyada ee lagu helay ninkaasi, maadaama uu galay dambiyo isugu jira kufsi, dil iyo jebinta xeerarka qoyska ee diinta Islaamka. Qaar ka mid ah bulshada ayaana ku dooday in xukun adag oo culus loo baahnaa si loo helo cadaalad buuxda, isla markaana looga hortago falalka noocaasi oo gobolka ku soo laabta. Kiiskan ayaana mar kale iftiimiyay baahida Soomaalida gobolka Waqooyi Bari ay u qabaan garsoor ku saleysan cadaalad oo sameeya xukunno bulshada ay ku qanacdo.